waxqabadyada xukuumadda Soomaaliland waa kuwa ku qotoma tiirarka salka u dhigaya horumarka iyo isbedelada qarankan. dhismaha dekedaha cusub ee hadda socda waa muuqaalada runta ah ee dabaqaya siyaasadda xukuumadda maanta ee Soomaaliland. dib u soo celinta qiimaha shilinka Soomaaliland waa adeegyada lagaga hortagayo sicir bararka. qalabaynta iyo dhiirigelinta mashruuca wax soo saarka qaranka waa siyaasadda koowaad ee xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi. qodida dayactirka ceelasha dhaadheer samaynta balliyada iyo barkaduhu waa hawlaha ugu badan ee taabagalay sanadkii labaad ee xukuumaddani. dhiirigelinta ciyaaraha, kobcinta waxbarashada, fidinta adeega caafimaad iyo ilaalinta deegaanka iyo duurjoogtu waa himilada maanta ee qarankan. mashaariicda dhismaha wadooyinka cusub waxay ka mid yihiin dhaxalka qiimaha leh ee ay Soomaaliland oo ay doonto. naqshadaha cusub ee magaalooyinka waa tallaabo geesinimo leh oo horey loo qaaday. mawaadiicdaas iyagoo faahfaahsan iyo kuwo kaleba waxay ka mid yihiin waxqabadyada sanadkii labaad ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hogaaminayo ee ku soo dhawaada. madaxweyne geyiga u kaco guddiga u xidho geyiga horumari geyiga horumari geyiga horumari geyiga horumari geyiga idinkuna bulshooy garab joogsado hooyaa qabta ducaanku gadaane guulaysa oo rabbi ha kuu gargaare gacmaha isqabsada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaa sanadka 2019 uu safar ugu kala baxay wadamada xiriirka ganacsi iyo dawladnimo ka dhaxeeyo Soomaaliland kuwaas oo kala ah Ethiopia, Imaaraadka Carabta, Djibouti iyo jamhuuriyadda Guinea Conakry. dalka isku taga Imaaraadka Carabta waxa madaxweynuhu uu ka helay martiqaad rasmi ah waxa mas'uuliyiinta dalkaasi ay ka wada hadleen danaha labada wadan. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa bartamihii sanadkan booqasho uu ku tagay dalka Guinea Conakry oo martiqaad rasmi ah ay ka heleen waxa madaxweynaha iyo wafdigiisa si weyn oo meeqaamkeedu sareeyo loogu soo dhaweeyay dalkaas. safarkaasi waxa uu ahaa mid shaqo oo albaabada u furay xidhiidha wada shaqaynada oo ay ka dideen cadowga Soomaaliland. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaa safar uu martiqaad rasmi ah ka helay ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed uu ku tagay dalkaasi. ra'iisul wasaare Abiy waxa uu madaxweynaha Soomaaliland ku qaabilay xafiiskiisa iyadoo madaxweyne Biixi intii uu dalkaas ku sugnaa uu la kulmay oo kale mas'uuliyiin sarsare oo dalkaas xilal muhiim ah ka haya. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu safar ku tagay dalka Djibouti oo martiqaad rasmi ah uu ka helay madaxweynaha dalkaasi. waxa safarkaasi uu ku qotomay xiriirka walaalnimo ee labada dal. madaxweyne Biixi waxa uu ku qaabilay xafiiskiisa madaxweynihii hore ee dalka Nigeria Obasanjo oo dalka booqasho ku yimi. sidoo kalena madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu dalka ku qaabilay safiirka Ingiriiska ee Soomaaliland iyo Soomaaliya Ambassador Belanka Martinez. waxa uu madaxweynuhu xafiiskiisa ku qaabilay safiirka Sacuudiga u fadhiya dalka aynu jaarka nahay ee Soomaaliya Dr. Maxamed Cabdi Qani. waa safarkii koowaad ee safiir Sacuudiga ka socda dalka ku yimaado. madaxweynaha Soomaaliland waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hogaaminayay safiirka Mareykanka ee Soomaaliland iyo Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto. sidoo kalena waxa uu madaxweyne Biixi ula kulmay wafdi ka socday dalka Jarmalka oo uu hogaaminayay safiirka dalka Jarmalka u fadhiya dalka Kenya. madaxweynuhu waxa uu kulan la qaatay wafdi safiir ah oo ka socday dalalka Denmark, Switzerland, Finland, Norway, UK iyo midowga Yurub. waxa kale oo wufuudii uu madaxweynuhu dalka ku qaabilay kamid aha wafdi uu hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea. madaxweynaha Soomaaliland waxa uu xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hogaaminayay wasiirka difaaca ee dalka Ingiriiska oo sanadkan 2019 kamid aha wufuudii dalka booqashada ku timi. madaxweyne Biixi waxa kale oo dalka ku qaabilay wafdi isugu jiro aqoon-yahano iyo diblomaasiyiin dalka u yimid carwadii caalamiga ahayd ee bandhiga buugaagta. sidoo kalena madaxweynuhu waxa uu qaabilay safiirka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya. dhammaan kulamadaasi waxa madaxweynaha ay kaga wada hadleen mas'uuliyiintaas iyo diblomaasiyiinta xidhiidhka wanaagsan ee Soomaaliland ka dhaxeeya si xoojintiisa maalgashiga dalka iyo qodobo siyaasadeed oo muhiim ah. xukuumadda Soomaaliland oo ka duuleysa baahida loo qabo dhamaystirka xeerarka lagama maarmaanka u ah qadiyadda madaxbannaanida Soomaaliland ayaa waxay sanadka 2019 dhamaystiray qoraalka xeerarka qaran ee kala ah xeerka calanka, xeerka astaanta, xeerka khariidada iyo xeerka afka. madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Seelici
ayaa daafuray barnaamijka wacyigelinta barashada dastuurka ee hadda ka baxa TV-ga qaranka iyo idaacadda Radio Hargeysa. barnaamijkaasi oo loogu wanqalay magaca waa dantaade bara dastuurka. barnaamijkaasi oo loo diyaariyay hab maqal iyo muuqaal ah ayaa si faahfaahsan uga hadlaya 130 qodob ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka kooban yahay. xukuumadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyadoo ka duuleysa qorshayaasha qaran ee horumarinta gobolada iyo degmooyinka dalka sugidda amniga iyo ilaalinta nabadgelyada bulshada Soomaaliland waxay ahmiyad weyn siisay horumarinta iyo xoojinta nidaamka maamulka degmooyinka uu dalku ka kooban yahay iyadoo dardargelisay habsami u socodka maamulka gobolada waxaana sanadkan xoog la saaray tayinta maamulka dawladaha hoose ee dalka si ay bulshada ugu fidiyaan adeegyada aasaasiga ee dastuurka Soomaaliland u damaanad qaaday. xoojinta iyo fidinta maamulka waxa saldhig u ah in la helo qorshayaal ay yeeshaan gobolada iyo degmooyinku si ay ugu suurta gasho in ay ka jawaabaan baahiyaha kala gedisan ee bulshada u ooman tahay. xukuumaddu waxa ay qorshe ka yeelatay xoojinta iskaashiga iyo wada shaqaynta maamulida degmooyinka dalka waxaana sanadkan gobolada dalka la fushay mashaariic badan oo wax weyn ka bedelay guud ahaan nolosha bulshada. degmooyinka dalka gaar ahaan Saylac, Boorama, Berbera, Sheekh, Burco iyo Oodweyne ayaa loo diyaariyay qorshayaashooda horumarineed iyo miisaaniyadaha ay ku shaqayn lahaayeen oo ku saleysan qorshaha horumarinta qaranka ee labaad ee loo soo gaabiyo NDP2 iyo barnaamijka xisbiga kulmiye. xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxay sanadkan gudihiisa dalka ka fulisay mashaariic horumarineed oo tiradoodu ay dhan tahay 174 mashruuc kuwaasi oo kor loogu qaadayay adeegyada bulshada sida caafimaadka, biyaha, waxbarashada iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee ay ka mid yihiin jidadka iyo waxyaabaha la midka ah. fulinta qandaraasyada mashaariicdaasi ayaa dhammaantood la mariyey nidaamka sharciga ee guddiga qandaraasyada qaranka Soomaaliland kadibna ay shirkadaha dalku ugu tartameen si daafuran waxaana arrintaasi laga marakacay ganacsato badan oo ka qayb galay tartamadaasi balse laga guuleystay kuwaas oo dhammaantood la bogaadiyey hanaanka cadaaladeed ee guddiga qandaraasyada qaranku ay ugu garsooraan tartamayaasha. tallaabadaasina ay muujinayso wax wada lahaanshaha bulshada iyo ummadda Soomaaliland ay u siman tahay qandaraasyada ay dawladdu bixinayso. waanan hambalyeynaya shirkadda anaga guuleysatay aad iyo aadna waa mahadsantii dhammaantiin insha Allah anaguna waxaan rajaynayaa kuwa dambe inaan ku guuleysan doono. halka waxaan ka cadaynayaa guddiga qandaraasyada qaranku qaabkii hawsha u maamuleen horeysa iyo dambeysaba si aad u qurux badan oo qiimo weyn qaranka ugu fadhiideynay. mashaariicdan waxay isugu jireen dugsiyo waxbarasho oo la dhisay, xarumo caafimaad, saldhigyo booliis, sariibado, garoomada kubadda lagu ciyaaro, biyo xidheenno, dhaamam, ceelal riigaga, laamiyo, biriijiyo iyo qalab iyo gaadiid ay dawladdu soo iibisay. xukuumadda Soomaaliland waxa ay bilowday dhismaha hoyga taariikhda qaranka. dhismahan ayaa ka koobnaan doona 6 dabaq. muuqaalkiisuna waxa uu noqon doonaa sidan imika aan arkayno marka uu dhammaystirmo. hawshaasi oo imika socota waxa ka qayb qaadanaya ciidamada qaranka ee Soomaaliland. waxa la diyaariyay dhulka loogu talagalay dhismaha madaxtooyada cusub. sidoo kale waxay xukuumaddu diyaarisay xarunta baarlamaanka cusub oo iyadana la dhisi doono. xukuumaddu waxa ay dhistay goobta lagu qabto munaasabadaha qaranka. wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guriyeenta oo xukuumadda uga mas'uul ah corinta iyo diyaarinta siyaasadda xeerka iyo qorsheynta lagu maamulayo guud ahaan dhulka magaalooyinka iyo dhismayaasha dawladda waxa ay sanadkan diyaarisay qiimeynta iyo nashqadaynta dhismayaasha dawladda ee laga wado gobolada iyo degmooyinka dalka Soomaaliland. sidoo kale xukuumaddu waxay sanadkan gobolada iyo degmooyinka dalka qaarkood ka hirgelisay kirada guryaha iyo bakhaarada dawladda ee dadka shacibka ay gacanta ku hayeen. xukuumaddu waxay soo gabagabaysay qorsheynta magaalooyinka Laascaanood oo lagu sameeyay wadooyin isugu jira kuwa dhaadheer iyo kuwa gaagaaban oo wadar ahaan 46 wado gaadhaya. howlgalkaana waxaa lagu dumiyey 23 deer iyo 227 sees oo wadooyinku ay ku soo hagaageen. waxaa laga fuliyey magaalada Gabil oo hadda gacanta ay ku hayso waxaana la banayn doonaa wadooyin cabirkoodu dhan yahay 114 kiiloomitir oo isugu jira wadooyin cabirkoodu dhan yahay 24 mitir iyo 18 mitir waxaana laga banayn doonaa gudaha magaalada Gabil. wasaaradda howlaha guud waxa ay dhamaystirtay qiimeynta iyo nashqadaynta 10 xarumo dhismeed oo laamaha dawladdu qaarkood ka fulinayaan gobolada iyo degmooyinka dalka.
xukuumadda talada haysa waxay xoogga saartay sanadka 2019 barnaamij howlgalkiisu uu isku sidkan yahay oo balaayo xijaab u ah foodsaare kasta oo wax dhimaal u ah diinta dhiirigelinta barashada diinta tirakoobka malcaamadaha qur-aanka lagu barto ee dalka samaynta manhaj mid ah tirinta iyo hubinta macallimiinta malcaamadaha samaynta xeerarka lagu dhaqayo tirsiimooyinka iyo qaar kale oo ku lamaanba waxay ka mid yihiin taayirada howlgalka qaar badan oo ka mid ahna waxay xukuumaddu samaysay sanadka 2019 malcaamadaha qur-aanka lagu bartay dalka ka furani hore umay lahayn maamul iyo hanaan xidhiidhiya taana waxaa sabab u ahaa xaaladihii gedgadoonka badnaa ee dibidhiskii lasoo maray kuwaasi oo sababay in qof waliba iska furto meel sidoo kalena xaaladooda iyo shaqadooda midnaba aanay si gun ah ugamay warhaynin wasaaradda diinta iyo awqaafta waxaana la darsay sidii loo wajihi lahaa hawshaasi taasi oo aakhirkii lagu dhaqaaqay sanadkan 2019 tirakoob muddo 4 bilood socday ayay xukuumaddu ka samaysay 4 magaalo oo waaweyn oo dalka ka mid ah waxaana howlgalka lagu diiwaangeliyay tirada malcaamadaha qur-aanka lagu barto magaalooyinkaasi oo dhan 1046 madarasadood iyo tirada macallimiinta wax ka dhigta oo dhan 5323 macallin siyaasadda xukuumadda ee ku waajahan cadaalad waxa uu hirgelay barnaamijka waxbarashada maxaabiista oo uu si rasmi ah u furay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici 23 bishii March ee sanadkan waxaan maanta halkan ka daahfuraynaa ama ummadda reer Soomaaliya u sheegaynaa in la bilaabayo waxbaristii maxaabiista jeelasha Soomaaliland ku jira barnaamijkan oo lagu maalgeliyay miisaaniyadda wasaaradda cadaaladda waxa uu barnaamijku koobayaa barashada waxbarashada tooska ah iyo mid dadban waa markii ugu horeysay ee waxbarasho heerka jaamacadeed laga bilaabay xabsiyada dalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ay hadda ka faa'iideystaan tiro maxaabiis ah oo dhigata kulliyadaha kala duwan ee jaamacadaha sidoo kalena waxaa imtixaanka shahaadiga ee sanadkii 2019 u fadhiistay maxaabiis ku kala xidhan xabsiyada ku yaala magaalooyinka Hargeysa iyo Boorama xukuumadda Soomaaliland waxay hay'adda lanqeyrta cas ay ku wareejisay 14 maxbuus oo ah maxaabiistii dagaal ay Soomaaliland ku qabatay weeraradii Soomaaliya ay ku soo qaaday xuduudka Soomaaliland wasaaradda warfaafinta wacyigelinta iyo dhaqanku waxay 2019 ku tallaabsatay horumar ku aadan dib u bilaabidda dhismaha xaruntii ugu ballaarnayd ee studio telefishan ee dalka ka hirgala waxa kale oo wasaaraddu ay ka faa'iideysatay kaydka ballaaran ee koronto ee tamarta cadceedda oo xilligan siiyay matooradii dabdhaliyaasha ahaa ee xarunta wasaaradda warfaafintu waxay markii ugu horeysay sanadka 2019 qaaday hilinka toosan ee ka faa'iideysiga miisaaniyadda wasaaradda taasoo ay ku maalgelisay tiradii ugu badnayd ee barnaamijyo iyo wax soo saar xambaarsan wacyigelin ku jahaysan xaaladaha ka faa'iideysiga wax soo saarka dalka waxbarashada xoojinta ammaanka qaranka xalinta mashaakilaadka maxalliga ee bulshada dhiirigelinta ilaalinta goobaha dalxiiska ee dalka sooyaalkii taariikheed ee la soo maray masrixiyada farshaxamaysan iyo mawaadiic kale kuwaasoo dhammaan laga baahiyay telefishinka qaranka idaacadda radio Hargeysa iyo shabakadaha madaxa bannaan warfaafinta qaranku waxay bedeshay qaabkii wada shaqayneed ee saxaafadda madaxa bannaan iyo dawladda iyadoo heshiisyo afgarad weyni ka dhashay ay isla gaadheen mulkiilayaasha telefishinada madaxa bannaan ee Soomaaliland ka howlgala sidoo kale waxay heshiisyo wax ku ool ah la soo gashay maamulka warbaahinta Itoobiya ambaqaadka heshiiskaasna waxay wafdi arrinta xoojinaya yimaadeen dalka waxaa dib u habeyn casri oo la jaan qaadaysa horumarka tiknoolajiyada lagu sameeyay xarunta kaydka telefishinka qaranka oo lagu xidhay serfaris soo gudbinaya tirsiga iyo tixraaca noocyada maqal muuqaal ee kaydsan sidoo kale waxaa xilligan socda hal abuur filim taxanaan noqon doona oo af Soomaaliya kaasoo nuxurkiisu ku jahaysan yahay hiilka dhaqanka iyo diinta isla markaana ku talagal ku yahay in laga maarmo filimada dhaqamada shisheeye xambaarsan ee bulshadu laasinta xilliyadan dambe warfaafinta qaranku waxay isku lamaanisay idaacadda radio Hargeysa iyo idaacadda Quraanka Kariimka oo 4 jeer oo warar lagu baahiyo waxa laba warlaliya idaacadeed lagu kordhiyay magaalooyinka Boorama iyo Laascaanood halka wasaaraddu dib u soo celisay telefishinkii localka ahaa ee qaranka wasaaradda warfaafintu waxay dib u habeyn ku samaysay xafiisyada xarunta wasaaradda xukuumaddu waxay sanadkan 2019 wax weyn ka qabatay cisbitaalada dalka sida furitaanka qaybta cusub ee bukaan socodka cisbitaalka Hargeysa dhismaha qaybta dumarka iyo umulaha ee cisbitaalka guud ee Hargeysa furitaanka qaybta cusub ee shaybaarka ee pathology-ga ee cisbitaalka Hargeysa oo markii hore dibadda loo diri jiray tababarida shaqaalaha cisbitaalka Hargeysa oo khubaro ka socotay King's College Hospital London
ay tababaro heerkoodu sarreeyo u qabteen dhismaha qaybta xanaanaynta caruurta dhalata ee neonatal care unit ee cisbitaalka Hargeysa. Dhamaystirka dhismayaashii ka socday cisbitaalka Ceyro Gaabo waxaa qalab iyo daawooyin loo qaybshay cisbitaalada Berbera iyo Ceyro Gaabo. Gunaysiinta shaqaalaha qaybta dhimirka cisbitaalka Ceyro Gaabo waxaana cisbitaalka la geeyay daawooyinka dhimirka. Dhamaystirka dhismayaasha cisbitaalka Laascaanood xukuumaddu waxay heshiis la gashay hay'adda MSF oo cisbitaalka ka taageeri doonta qaybaha caruurta degdega iyo dumarka waxayna shaqaalaysiisay 80 qof oo shaqaale caafimaad ah tababarida dhammaan maamulayaasha cisbitaalada dalka. sidaan ogsoonahay talaalku waxa uu laga maarmaan u yahay caafimaadka qofka iyo kan bulshadaba waana habka ugu waxtarka badan ee loo adeegsado ka hortagga iyo xakamaynta cudurrada faafa ee dilaaga ah qaarkood. sanadkan waxaa kor loo qaaday nidaamka qaboojinta talaalka waxaana sidoo kale la kordhiyey tirada la talaalay oo gaaraysa 2019 733,654 qof halka sanadkii hore ay ka ahaayeen 62,702 qof. xukuumaddu waxay daawooyinka xanuuno muhiima u qaybisay cusbitaalada dalka sidoo kalena waxaa la gaadhsiiyey qalabyo muhiim u ah daaweynta dadka bukaha. waxbarashadu waa hubkii baahida lagu reebay iyadoo fulinaysa siyaasadda xukuumadda Somaliland waxay wasaaradda waxbarashada iyo saynisku ay sanadka 2019 markii u horeysay deeqihii waxbarashada ee ay inoogu deeqday dawladda aynu jaarka nahay ee Itoobiya u gaar yeeshay ardayda ka baxda dugsiyada dawladda kuwaasi oo u badan bulshada danyarta ah ee reer Somaliland. anigoo ah Raxme Cabdilaahi Bilaa oo waalid ka tirsan waalidiinta ah waxaan u mahadnaqayaa dawladda Somaliland sida fiican ay noo garab gashay ubadkayaga ay u raali gelisay sahaydii iyo noolkii wax kasta ay ka bixisay maantana gaariyadii u dambeysay ay noo saarayso madaxweynaha qarankan u mahadnaqaynaa waanu ducaynaynaa ilaahay ha khayraad siiyo caruurtayadana waxaan ka rajaynaynaa iyagoo wax soo bartay oo dalka iyo diintoodaba anfaca inay nagu soo noqdaan si khayr qabta. runtii maanta waxay tahay maalin aad u farxad leh waxaan dareemayaa waxaan ummadda kale baa dareemayn baan dareemayaa maanta halka waxa ka baxaya arday aad u fara badan waxaana diraya dawladda Somaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland waan u mahadnaqayaa Muuse Biixi Cabdi aad baan ugu mahadnaqayaa ilaahayna waxaan u rajaynayaa ardayda naga anbabaxday maanta inay noqdaan kuwa dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda anfaca iyagoo nabad qaban ilaahay soo nabad celiyo. runtii marxalado kala duwan bay soo maray waxa weeyaan deeqda waxbarasho maanta waxaan taaganahay stage-kii ugu dambeeyay oo ah waxa weeyaan inaan baxno waxaan rajaynayaa inaan mustaqbal fiican dalka waxa weeyaan ku soo kordhino inaan aqoon annagoo ku hubaysan aanu soo noqono ayaan rajaynayaa insha Allah. waxaa kale oo 450 deeqa waxbarasho ee la siiyay dugsiyada iyo jaamacadaha dawladdu ay dhiirigelin u noqotay ardayda wax ka barata dugsiyada dawladda waxaana ay kaalina toganah ka qaadatay qorshaha kor u qaadida tayada waxbarashada dugsiyada dawladda. waxaa deeqaha waxbarasho si siman ah loogu qaybiyey dhammaan gobolada dalka iyadoo oo gobol kasta uu ka helay tiro saami ahaan u dhiganta. madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa si rasmi ah waxa uu furay sanadkan kulliyadda tababarka macallimiinta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland oo ay wasaaradda waxbarashada iyo saynisku ka hirgelisay magaalada caasimadda ee Hargeysa waxaana lagu bilaabay ku dhawaad 400 oo macallin oo jaamacadaasi waxbarasho ka bilaabay. madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa 6 February 2019 si rasmi ah u daafuray qaybinta buugaagta manhajka dugsiyada hoose dhexe ee dalka kuwaasoo xukuumaddu si lacag la'aan ugu qaybisay ardayda dugsiyada dawladda. buugaagtaas oo tiradoodu ahayd 1,200,000 oo kun waxaa ka faa'iideystay arday tiradoodu dhan tahay 153,770. 13 dugsi oo ka tirsan gobolka Awdal ayaa waxa lagu kordhiyay 13 fasal halka gobolka Sool 35 fasal lagu kordhiyay 14 dugsi. sidoo kale gobolka Maroodijeex waxaa 35 dugsi oo ku yaala lagu kordhiyay ilaa 50 fasal. geesta kalena 16 dugsi oo ku yaala gobolka Saaxil waxaa lagu kordhiyay 39 fasal. xukuumadda Somaliland waxay sanadkan horumar weyn ka samaysay helidda biyo nadiif ah iyadoo laga qoday 32 ceel oo kuwa dhaadheera deegaano ka kala tirsan magaalooyinka Hargeysa, Oodweyne, Burco, Laascaanood, Berbera, Lugahaya, Seylac, Balan iyo Ceyro Gaabo. sidoo kale waxa xukuumaddu dayactir ay ku samaysay ceelasha dhaadheer ee ku yaala dhammaan gobolada dalka Somaliland. xukuumadda oo ay matalayso wasaaradda biyaha waxay saameyn ku samaysay 33 ceel oo ah kuwa dhaadheer iyadoo geesta kalena xukuumaddu magaalooyin yaryar iyo tuulooyin u samaysay biyagelin kuwaasi oo kor u dhaafay 50 xarumood oo dalka oo dhan ka kooban
halka 5 magaalo oo waaweyna biyo ballaarin loo sameeyay wadarta dhaamamka ay xukuumaddu qoday iyo kuwa la dayactiray ayaa wadar ahaan noqonaya 5 dhaam horumarinta biyaha waxa kale oo kamida samaynta barkadaha iyo dayactirkooda waxaa markii ugu horeysay intii ay jirtay wakaalada biyaha Hargeysa u hirgashay inay dakhligeeda ka soo iibsato 7 bamamka biyaha riixa oo qalabkoodu u dhameystiran yahay waxaana laga nastay ciladihii joogtada ahaa ee ku iman jiray bamamka qadiimka ee ku rakibnaa geed deeble iyo biyashiinaha oo awoodoodu ay ka yarayd 1800 oo RPM dabcunistooduna ay ka badnayd 95 kilowatt halka kuwa cusub ee hadda wareegoodu yahay 2975 RPM dabcunistooduna ay tahay 75 kilowatt oo kaliya wakaalada biyaha Hargeysa waxa ay kharashkeeda ka soo iibsatay gaadiid noocyada waaweyn kuwaasi oo shaqadeeda muhiim u ahaa kuwaasi oo ay ka mid yihiin cagaf nooca waaweyn ee loo yaqaano sheewal cagaftaasi waxa loogu talagalay dayactirka iyo ilaalinta beebabka biyaha iyo waliba dooxyada ay biyuhu ka yimaadaan booyad istiida oo ah nooca shidaalka qaada mugga ay qaadi kartana uu yahay 260 foosto waxay meesha ka saartay kharash fara badan oo wakaalada kaga bixi jiray kirada gaadiidka u qaadaya shidaalka waxa la dhameeyay tijaabada cadaadiska dabka beebka pressure test masaafadan 12.8 mitir una dhiganta 2.5 boqolkiiba waxa geedeebra laga dhisay xarun biyo soo saar oo cusub oo dhismaha sanadkan la dhameystiray waxayna ka kooban tahay qol weyn oo la dhigayo 6 mishiin oo dabka u dhaliya xarunta biyo soo saarka cusub 4 qol oo xafiisyo iyo qaybaha laga maamulayo korontada iyo qaybta kaydka shidaalka oo ka kooban 2 haamood oo waaweyn kuwaasi oo midiiba ay keedinayso 23 mitir cubic oo shidaal ah waxay xukuumaddu ka rartay qoysas deegaanada dhulka ay ku yaalaan barkadaha biyaha gacan libaax iyo kaydka weyn ee sheedaha deegaanka haddaan la dhowrin haddaan dhirta loo ilaalin haddaan la dhuganin danteena ummad waliba waxa ay u eg tahay sida deegaankeedu u eg yahay hadduu foolxu yahay dad duunyo iyo duurjoog inta naflay ku dhaqani ilwaad iyo qurux ma yeeshaan nolol fiican iyo tanaadna ma gaadhaan inkastoo dhulka Soomaaliland mid aad u mucjiso badan uu yahay manfac ahaan taariikh ahaan iyo dalxiis ahaanba haddana sida qofku xoolihiisa u ilaaliyo haddaan loo dhowrin waa umuurad guura haatan deegaanka Soomaaliland waxa uu muuqdaa mid ka soo doogaya aafooyin dadsamee ah oo biligiisa iyo burjigiisa ildoogsiga leh dhalanrog iyo xaalufkaysiiyay sidaasi aawadeed xukuumadda Soomaaliland ee talada haysa sanadka 2019 waxay qaaday tallaabooyin waaweyn oo daryeelka deegaanka wacyigelinta guud ee baraarujinta bulshada Kasuko waxa sanadkan diiradda la saaray ballaarinta xarumaha dhirbeerista seerayaasha ka hortagista ugaadhsiga sharci darrada ah ee duurjoogta yareynta dhuxusha iyo qodobo kale oo muhiim ah oo dhammaantoodba deegaanka dalku kaga soo kabanayo xaalufinta horseedka u ah abaaraha hadhiwaaga noqday xukuumaddu waxay abuurtay xarumo dhirbeeris iyo kuwo lagu kubcinayo dhirta kuwaasi oo badi laga hirgeliyay goobaha ay ku habboon tahay ee gobolada Soomaaliland si loola dagaalamo xaalufka iyo nabaad guurka deegaanada uu ku badan yahay dhirtaasi oo tiradoodu ay dhan tahay 376 oo geed waxa dib loo soo celiyay badi seera kaymeedyadii iyo seera daaqsimeedyadii hore u jiray waxaana shaqo weyn oo dib u habayn iyo dib u tayeyn ah laga sameeyay seerayaashaasi dhanka kortegiska xaalufka waxay xukuumaddu qaaday olole baajiye ficilo badan oo kamid ah kuwa deegaanka xaalufka iyo nabaad guurka u horseeda isla markaana waxay wasaaradda deegaanku qaaday 105 hawlgal oo lagu baabi'iyay dhul xidhasho iyo oodasho sharci darro ah oo laga sameeyay dhul daaqsimeedka dalka qaar waxa dalka laga saaray ugaarsato ajnabi ah oo wadanka u yimi ugaarsi geesta kalena waxay xukuumaddu abuurtay kooxo deegaan jirayaal ah oo bulshadu si weyn u soo dhaweeyeen Soomaaliland waxay qayb ka noqotay kaambeynka caalamiga ah ee lagu daba qabataynayo isbeddelka cimilada adduunka isla markaana xukuumaddu waxay ka qayb gashay shirar caalami oo ka dhacay dalalka Koonfur Afrika iyo Sweden kuwaas oo laga wada hadlay xaaladda cimilada adduunka iyo badaha xukuumadda Soomaaliland waxa ay ka qayb gashay shirweyne ka dhacay dalka Sweden sidii wax looga qaban lahaa saameynta isbeddelka cimiladu ku yeelatay badaha Soomaaliland Marine Environment of Somaliland oo u baahan in la sameeyo xayndaab ama seera badeed Marine Protected Area MPIS oo lagu ilaaliyo kala duwanaanshaha nololeed ee biodiversity hotspots-ka oo loo qoondeeyay in 5% dalka Sweden ka qayb noqdo sanduuqa horumarinta Somaliland ee SDF
oo ah sanduuq ay ku bahoobeen dowlado badan oo somalilan ka taageera dhinaca horumarka. daraasado la sameeyey ayaa iftiimiyey haddaan laga hortagin 5 sano ee soo socda in maadada mercury ku badan doonto badaha islamarkaasina haddaan laga ilaalin qashinka uu diiqowga baduhu sababi karo in kalluunku sumoobo. digniinaha dartood somalilan waxay dalka sweden iskaashi kala yeelatay arrimaha la xidhiidha ilaalinta daryeelka badda. xukuumaddu waxay tartan ciyaareed dhinaca kubadda cagta ah ka hirgelisay 7 gobol. tartankaasi waxaa ka qayb galay kooxaha heerka koowaad ee xarumaha gobolada oo kale ah laascaanood, ceergaabo, caynabo, oodweyne, buuhoodle iyo balligubadle. xukuumaddu waxay sanadkan suurtagelisay tartanka kubadda cagta ee kooxaha heerka koowaad ee magaalada laascaanood. tartankaas oo muddo bil iyo dheeraada ka socday garoonka cabdi bile waxa uu ahaa mid aad u xiiso badnaa, waxaana ka qayb galay 16 kooxood. tartamada ciyaaraha ee sanadkan xukuumaddu qabatay waxaa ka mid ah tartanka kubadda cagta ee kooxaha heerka koowaad ee magaalada ceerigaabo, tartanka kubadda cagta ee degmooyinka Hargeysa, tartankii bishii Ramadaan ee kubadda cagta, tartanka akademiyaha kubadda cagta, tartamadii kubadda cagta ee Burco, Boorame iyo Berbera. tartamada orodada 5 kiiloomitir ee Ceerigaabo, gobolka Hawd iyo Laascaanood midkiiba yahay 10 kiiloomitir oo Hargeysa, iyo tartanka orodada maratonka ee Somaliland waxay ahaayeen kuwo si weyn u soo jiitay indhaha bulshada. madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa xariga ka jaray garoonka kubadda cagta iyo ciyaaraha fudud ee alamse stadium ee magaalada burco, kaasoo lagu sameeyey dib u habayn iyo casriyeyn la dhigay roog cagaaran iyo dayactir lagu sameeyey garoonka iyo gidaaradiisa iyo kaabadaha oo ay roobabku dumiyeen 2018. waxay xukuumaddu bixisay qandaraasyada dhismaha 3 garoon ciyaareed oo laga samaynayo magaalooyinka Ceerigaabo, Oodweyne iyo Caynabo. sidoo kale waxaa imika socota hawsha dib u habaynta iyo casriyeynta garoonka kubadda ee timacade ee magaalada Hargeysa. wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Yuusuf Mire Maxamed Boos ayaa dhagax dhigay garoonka kubadda cagta ee magaalada Balligubadle ee gobolka Hawd, kaasi oo dhismihiisa lagu daray miisaaniyadda qaranka ee sanadda 2020. dhamaystirka siyaasadda iyo habraacyada shaqaalaha lagu maamulo oo muhiim u ah darteed waxay xukuumadda Somaliland iyadoo la eegayo baahida loo qabo in la helo nidaamyayaal sharci oo fududeeya nidaamka shaqada hay'adaha dawladda ayaa xukuumaddu iyadoo kaashanaysa barnaamijka dib u habaynta shaqaalaha ay si rasmi ah u dhaqan gelisay 16 habraac sharciyeed oo muhiim ah. waxa wax ka bedel lagu sameeyay iyo kaabis xeerka guud ee shaqaalaha dawladda oo la sameeyay 1996 xeer lambar 7, xeerkaas oo muddo ka badan 22 sano ahaa xeer aan gaarin golaha sharci dejinta si ay u ansixiyaan. sidaas awgeed waxa lagu sameeyay dib u eegis si loo waafajiyo nidaamka hay'adaha shaqaalaha ee wadamada kale sida ay u shaqeeyaan. xeerkan cusub ee qabyo qoraalka iminka gacanta lagu hayo waxaa loo gudbin doonaa golaha wasiirada si ay ansixiyaan ugana sii gudbiyaan golaha baarlamaanka ee waajibaadkooda sharci uga gutaan. macadka shaqaalaha dawladda ee qaabilsan kobcinta iyo kor u qaadida aqoonta iyo xirfadaha shaqaalaweynaha qaranka Somaliland waxaa sanadkii 2019 ka qalin jabiyey arday gaadhaysa 298 arday oo kala ahaa 140 arday oo inamaa iyo 49 dumara, halka ardayda dhiganaysa sanad dugsiyeedka 2019 ay dhan yihiin 555 arday oo u kala baxa 438 raga iyo 117 dumara. tirada shaqaalaha ee wasaaradaha iyo hay'adaha dawladda ugu jiray miisaaniyadda 2019 ee la shaqaaleysiiyey waa 1814 shaqaale ah. tirada ardayda shaqo qaran ee ka baxday sanadkan 2019 ee la shaqaaleysiiyey waa 1349 shaqaale ah. isugeynta shaqaalaha ay sanadkan 2019 xukuumaddu shaqaaleysiisay waa 3163 shaqaale ah. shaqo qaran 300 oo ka mid ah ayaa waxa qaadatay shirkadda Singapore New Silk Somaliland Energy Company. xukuumadda madaxweyne muuse biixi oo dardar gelinaysay hay'adda dhowrista tayada waxay sanadka 2019 ka samaysay howlgallo waaweyn oo ay ku hubsanayeen tayada badeecadaha dalka soo gala sida agabka iyo anfaca nolosha. waxaa baadhis lagu sameeyey lana diiwaan geliyey ilaa 30 shirkadood oo dalka keena cabitaanka kala duwan, kuwaasoo la baadhay tayada nooca cabitaanka ay keenaan, isla markaana waxaa la hubiyey habka ay u kaydiyaan. geesta kalena si cabashada bulshada looga jawaabo
waxaa baadhis lagu sameeyey agabyada iyo cuntooyinka la soo waarido taasoo ku dhiirisay ganacsatadu inay ka taxadaraan waxyaabaha ay ka ganacsadaan. sanadka 2019 waxay xukuumaddu soo iibisay mishiinka la yiraahdo liquid chromatography kaasi oo lagu baari doono cuntooyinka kala duwan, dawooyinka iyo waxyaabaha la isku qurxiyo ee dalka soo gala. oo waxa la yeegleelay dhismaha xarunta shaybaadhka cuntada, dawada iyo agabka la isku qurxiyo. dhismaha xarunta guud ee hay'adda dhawrista tayada oo ku shaqayn doonto ayaa dhismaheedu ka socda Hargeysa oo waxa dayactir lagu sameeyay xafiiska hay'adda ee Cigaal Airport. xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland sanadka 2019 waxay dadaalo ka muujisay dhinacyada kor u qaadista shaqo abuurka, dhiirigelinta xirfadlayaasha, daryeelka carruurta darbijiifka ah, taakulaynta danyarta, ka hortagga caqabadaha horyaala bulshada sida gudniinka fircooniga, la socodka xaaladaha qoyska Soomaaliland iyo guud ahaan haweenka dalka. wasaaradda shaqagelinta arrimaha bulshada iyo qoyska oo qaranka uga wakiila arrimaha bulshada ayaa shaqo abuur u samaysay 20 qoys oo Soomaaliland u dhashay oo loo furay meherado yaryar oo ay noloshooda ku dabaraan. xarunta tababarada iyo la talinta shaqadoon Soomaaliland oo ah xarun ay maamusho wasaaradda shaqadu ayaa dhalinyaro reer Soomaaliland ah lagu siiyay tababaro ku saabsan horumarinta ganacsiga iyo xirfado kale kuwaas oo tababaradoodii dhamaystay bartamihii bishii Maarch sanadkan 2019. waxaa dhiirigelin loo sameeyay boqolaal dhalinyaro ah oo qaybaha farsamada gacanta ku bartay gobolada dalka qaarkood, sidoo kalena 120 dhalinyaro ah xukuumadda Soomaaliland ku tababartay magaalada Hargeysa. dhalinyaradaasi oo badankoodu ku nool xaafadaha barakacayaasha iyadoo xukuumadduna ay sidoo kale ka gacan siisay dhalinyaradaasi kor u qaadista fursadda ay u leeyihiin in ay shaqo helaan. geesta kale madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waxa uu ka qayb galay shirweynaha hirgelinta qoondada haweenka oo lagu qabtay magaalada Boorama. arrimaha barakacayaasha, qaxoontiga iyo dadka magangalyadoonka oo ay xukuumadda u qaabilsan tahay hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha waxay sanadkan caawimooyin isugu jira raashin, alaabtaan cuntada ahayn, lacago cadaan ah, dhul ay degaan, xifrad barid, fursado shaqo abuur ah ay gaarsiisay barakacayaal ka badan 42,000 oo qoys. xarumaha kaamamka barakacayaasha waxay xukuumaddu ka hirgelisay koronto ku shaqaynaysa tamarta qoraxda iyadoo isla markaana laga caawiyay habka biyo helidda xarumahaasi waxay ku kala yaalaan magaalooyinka kala duwan ee dalka. sanadkan waxay xukuumaddu ka diiwaangelisay magaalada Hargeysa 1450 qoys oo isugu jira qaxoonti iyo dad magangalyadoona kuwaasoo ka kala yimi wadamada aynu jaarkanahay sida Itoobiya, dalalka Carabta ee xiisaduhu ay ka taagan yihiin. sidoo kalena waxaa magaalada Berbera lagu diiwaangeliyay 961 qoys oo qaxoonti ah. soo noqodayaasha sanadkan la diiwaangeliyay waxay tiradoodu dhan tahay 1452 qof kuwaasoo ka soo laabtay wadamo ay ka mid yihiin Yemen iyo Liibiya. waxaa la sameeyey hannaan u xil saaran diyaarinta qorshayaasha dib-u-dejineed ee muwaadiniinta Soomaaliland ee laga soo celiyey wadamada dibadda iyadoo sanadkan 2019 dalka Soomaaliland ay ku soo noqdeen muwaadiniin ay tiradoodu dhan tahay 391 qof oo ka kala yimi dalal kala duwan. waxaa dib-u-dejin loo sameeyey 140 dhalinyaradaas ka mid ah kuwaasi oo la siiyey tababaro la xiriira sidii ay u abuuri lahaayeen ganacsiyo u gaar ah oo loo maalgeliyo iyadoo ay qaarkood hadda loo maalgeliyey ganacsi kala duwan oo ay soo codsadeen taasoo wax weyn ka bedeshay noloshoodii. maanta shaqo abuurka noo sameeyay alxamdulillaah rabbil caalamiin dawaanaga maanta kaalinta ku jirnaa shaqaysanayna insha Allah horumar saa ka sii ballaaranayna ka galan doonaa. waxa la fuliyay hawlgal xog lagaga warurinayay dadka ajaanibka ah ee ku sugan Soomaaliland iyadoo laga diiwaangeliyay gobolada Togdheer, Sool iyo Awdal. hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaashu waxay hirgelisay dhismayaal xafiisyo cusub oo sanadkan lagu soo kordhiyay. xarunta hay'addaasi waxa kale oo dayactir ballaaran lagu sameeyay 9 xafiis. xukuumadda Soomaaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyada oo ka duulasa muhiimadda ay qaranka u leedahay abuurista kayd raashin oo qaranku uu leeyahay si looga baxo cunayarida dalka ka jirta iyo gacmo hoorsiga shisheeye. waxay samaysay hay'addu dadaal badan oo arrintaasi lagu suurtagelinayo waxna laga qabanayo. sidaas darteed hay'adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka oo arrintaasi mas'uul uga xukuumaddu waxay sugtay dhulkii laga dhisi lahaa bakhaarada
kaydka raashinka qaranka ee gobollada togdheer saaxil maroodi jeex iyo awdal waxaa kale oo ay dhammaystirtay dhismaha qaar ka mid ah bakhaaradaasi sida bakhaarka kaydka raashinka qaranka oo laga dhisay xarunta hay-adda ee magaalada hargeysa waxaa kale ay xukuumaddu ka dhistay magaalada hargeysa 3 teendho oo waaweyn oo loo isticmaali doono bakhaaro raashinka lagu kaydiyo si loo dhowro loona ilaaliyo kaydka raashinka qaranka waxaa la sameeyey nidaam la socdo tiknoolajiyadda casriga ah oo lagu maamuli doono kaydka raashinka qaranka si wax muuqda loogu qabto beerihii ay waxyeelaysay duufaantii iyo daadadkii sagar hay'adda Narford ay fuliyeen howlgallo isugu jiray daaduus iyo gebyan xidhis iyo mishiino biyood waxaana laga fuliyey bishii shanaad ee 2019 deegaanada ay duufaantii sagar waxyeelaysay. xukuumadda Soomaaliland iyadoo ogsoon xidhiidhka ka dhaxeeya hagaajinta nidaamka maaliyadda dalka cashuur qaadista dakhliga beeqaaminta kharashaadka dawladda awoodda adeeg bixinta hirgelinta mashaariic horumarineed iyo kobca dhaqaalaha waxaa la abuuray si loo gaaro himiladaas waxyo u gaara sidoo kale xukuumaddu waxay dadaal weyn u gashay sidii loo soo saari lahaa miisaaniyad aan wadan kororsiimo cashuureed si aan dadka culays loo saarin. waxa kaliya ee kororsiimo loo adeegsaday tayeenta maamulka ku dhaqanka shuruucda maaliyadda tababarka shaqaalaha wada shaqeynta iyo wacyigelinta cashuur bixiyaha iyo iskaashiga kale ee hay'adaha xukuumadda waxaana lagu guuleystay in la soo saaro dakhli 25% ka sareeya miisaaniyadii sanadkii 2018 xukuumadda Soomaaliland iyadoo aaminsan muhiimadda uu u leeyahay barnaamijkani iyo in la helo xal rukunada u taaga kobaca dhaqaalaha horumarinta maamul wanaagga maaliyadda waxaa horumar laga sameeyay dhammaan tiirarka uu ka kooban yahay mashruuca BFM-ka sida dhaqaalaha maamulka miisaaniyadda dakhli ururinta iyo maamulka fulinta miisaaniyadda waxay xukuumaddu qaaday tallaabooyin cashuuraha bariga lagu gaarsiiyay kororsiimo dhan 22% marka loo eego kal hore iyadoo la sameeyay habraacyo iyo xeerar kala duwan sida samaynta iyo dhaqangelinta xeer nidaamyaasha iyo xeerarka dakhliga hirgelinta hagaha cashuur bixiyaha iyo habraacyo kale. wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska oo fulinaysa siyaasadda xukuumadda Soomaaliland waxay hirgelisay nidaam sahlay diiwaangelinta ganacsiga ee loo yaqaano daaqadda kaliya kaasoo ah nidaam u fududeeyay dhammaan ganacsatada isdiiwaan gelinaysa inay ku qaataan liisanka ganacsi muddo 2 maalmood oo kaliya halkii markii hore ay ku qaadan jirtay muddo 7 sidoo kale wasaaraddu waxay curisay xeerar lagu maamulayo ganacsiga heerarkiisa kala duwan sidoo kale waxay kaalin weyn ka qaadatay kobcinta dakhliga dalka. wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiisku waxay dhammaystirtay dib u habayn ballaadhanna lagu sameeyey dhismaha xarunta wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska waxaa kale oo ay dhammaysay dhismaha 6 xafiis oo laga dhisay xarunta wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska oo loogu talagalay in laga hirgeliyo nidaamka cusub ee diiwaangelinta ganacsiga. wasaaraddu iyadoo ka duulaysa siyaasadda xukuumadda ee kor u qaadista goobaha dalxiiska waxaa la dhammaystiray dhismaha dayrka iyo goobta dalxiiska ee Laskeel oo loo sameeyey dayr iyo dhismayaal wax ku ool u ah goobta sidoo kalena waxaa iyana dhismayaal laga hirgeliyey goobta aataarta qadiimka ah ee dhagax guura sidoo kalena waxaa sanadkan sii galbanaya u qabsoomay xukuumadda curinta hagaha dalxiisayaasha ee goobaha aataarta qadiimiga ah ee dalka. xukuumadda Soomaaliland oo ka duulaysa ahmiyadda dal soo koraya u leeyahay maalgashigu waxay ka dhigtay wasaaradda maalgashiga midgaarkeeda u taagan sanadka 2019 tallaabooyinka arrinta laga qaaday waxaa ka mid ah diyaarinta qorshe maalgashi oo 5 sanadood ah kana bilaabmaya 2019 ilaa 2023 oo ay yeelato Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaana la diyaariyey siyaasaddii maalgashiga ee heer qaran sidoo kalena waxaa la soo saaray buugahagaha maalgashiga xukuumaddu waxay diiwaan gelisay maalgashadayaal cusub oo gaadhaya 46 maalgashade kuwaasi oo badankoodu ka howlgelaya dhinacyada macdanta kaabayaasha dhaqaalaha kalluunka xoolaha iyo beeraha. xukuumaddu waxay bilowday oo imika socota dhismaha dekadda cusub ee kontiinarada oo dhererkeedu u dhan yahay 400 mitir dekadda waxaa maalgelinaysa shirkadda DP World sanadka 2019 waxaa soo gaadhay shirkadda dekadda dhisaysa dhammaan qalabkii kala duwanaa ee dhismaha dekadda oo ay ugu muhiimsan yihiin kuwa qodista joogga hoose oo gaarsiisan ilaa 17 mitir waxaa kale oo dekadda berberaha soo gaadhay 3 wiisha oo midkiiba 120 tan yahay kuwaasi oo ku kacay qiimo gaadhaya 12 milyan oo dollar waa markii ugu horeysay ee ay dekadu yeelato wiishash noocaas oo kale ah hore waxaa rarka u rogi jiray wiishasha maraakiibta ku rakiban oo ka ugu badan xaddigiisu gaadhayay 70 tan haddase waxaa la isticmaalayaa kuwan casriga ah
qalabka cusub ee dekada soo gaaray 2019 waxa ay kala yihiin reach starkers 6 xabo, empty handlers 5, terminal tractors and chassis 20 xabo iyo man lift oo 1 xabo. qalabkaasi oo dhan dekada Berbera xilligan si rasmi ah ayay uga howlgashaa. dhismaha dekada cusub ee konteenarada oo dhawaanay ahayd markii uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi dhagax dhigay midhaheedii waa muuqaalka dhismaha dekadaasi oo xilligan u socda sidii qorshuhu ahaa waxayna maraysaa marxalad 50% ah iyadoo 12 bilood kadibna lagu rakibi doono wiishasha nooca casriga ah ee loogu talagalay dekadaha noocan oo kale ah haddii Allaha uu dalihi ogolaado. shaqaalaha ka howlgelaya dhismaha dekada cusub waxay tira ahaan ka badan yihiin 900 oo qof, 480 ka mid ahi waa muwaadiniin lagu xushay aqoontooda iyo xirfadlayaal muhiima. tirada kale ee shaqaalahaasi waa ajnabi aqoontooda looga maarmi waayey in ay halkan ka shaqeeyaan oo ay ka howlgalaan. dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo hay'adda DP World waxay si wada jir ah u kala saxeexdeen daafurka aaga cashuuraha ka caagan free zone ee dekada Berbera iyadoo goobjoog ka ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo ay wehelinayeen mas'uuliyiinta golayaasha qaranku. mashruucan Berbera Port iyo hawshiisa aragtida guud ee kala leenahay qaran ahaan waxa weeye inaanu ka helo koboc dhaqaale oo dalkeena Soomaaliland iyo gobolka aynu ku nool geeska Afrika caalamkana aynu la wadaagno ayaynu aragtida guud ka leenahay. himladeenu waxa weeye aynu mashruucan kala dekedan in ay barwaaqowdo Soomaaliland oo horseed u noqoto bilowga dhismaha dekada iyo wadada Berbera iyo airportka Berbera oo isaguna noqon doona mid baayac mushtari oo ganacsi oo international ah oo hab weyn. xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa ay qaaday tallaabooyin lagu horumarinayo jidadka dalka iyadoo wadada xiriirisa magaalooyinka Burco iyo Ceerigaabo oo ay maalgelisay xukuumadda Soomaaliland waxa uu dhererkeedu u dhan yahay 274 kilomitir. markii ay xilka la wareegtay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa dhisnaa 94 kilomitir oo laami ah. isla sanadkii u horeeyayba ee 2018 waxay xukuumaddu ay ku dartay 59 kilomitir oo laami ah halka sanadka 2019 lagu kordhiyay 48 kilomitir oo laamiya. guud ahaan bay sugeynta guud ee inta dhisan jidkaasi ayaa xilligani waxay noqonaysaa 201 kilomitir taasi oo dabayaaqada sanadkani suurtagal ka dhigaysa inay jid laami ah xidhiidhiyo degmooyinka Ceerigaabo, Ceelafweyn iyo Garadag. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu dhagax dhigay dib u dhiska wadada Hargeysa ilaa Kalabayd oo dhererkeedu dhan yahay 60 kilomitir. waxa ilaa hadda la dhisay 39 kilomitir isla markaana loo sameeyay calaamadaha wadada iyo rinjiyeynta calaamadaha kala sooco haadadka jidka. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu dhagax dhigay 28 February 2019 dhismaha jidka Berbera Corridor ee Berbera ilaa iyo Wajaale kaasi oo uu maalgeliyay Imaaraadka Carabtu isla markaasina ay fulinayso shirkad lagu magacaabo Conser. waxa dhismihiisa la bilaabay bartamihii sanadka 2019 waxaana qorshuhu yahay in uu dhamaado sanadka 2022. dhererka wadada Berbera Corridor waxa uu dhan yahay 241 kilomitir oo ay wehelinayaan 4 bridge waxaana haatan la dhisay 5.2% oo ka mid ah jidkaasi. waxaa la bilaabay April 2019 sidii loo bannayn lahaa jidka dhinacyadiisa si ballaarintu u suurta gasho isla markaana waxa barbar socota dhismaha wadada ay sida kumeel gaarka ah u isticmaalayaan gaadiidku muddada dhismuhu socdo waxaana la baneeyay jidka hareerihiisa 70 kilomitir oo laga dhigay jid kumeel gaar ah iyada oo 70 kilomitir oo kalena gacanta lagu hayo hadda. wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka, wakaaladda horumarinta wadooyinka Somaliland iyo bangiga horumarinta African Development Bank Group waxa ay kala saxeexdeen heshiis uu bangigaasi ku maalgelinayo dhismaha jid laami ah oo isku xidhi doona Looyacado Farda lagu xidhiyo Booramo oo dhererkiisu dhan yahay 300 oo kilomitir. sanadka 2019 waxaa dayactir ballaaran lagu sameeyay jidka Burco ilaa Laascaanood inta u dhaxaysa Tuulo Samakaab ilaa Ari Cadeeye oo waxyeello ka soo gaadhay daadka roobabkii da'ay.
jidka xidhiidhiya magaalada boorayme iyo jaamacadda camuud waxaa dhexda ka jabiya doox xilli roobaadka sababa in ay kala go'doomaan ardayda iyo fasalada jaamacadda madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi 2018 sanadkaasi mar uu ka qayb galay xaflad loo sameeyey arday ka qalin jabisay jaamacaddaasi oo uu arkay baahida ayaa u dhagax dhigay dhismaha bridge fududeeya isku xidhnaanta magaalada iyo jaamacadda kaasi oo la dhammaystiray geesta kale wasaaradda iyo guddiga qandaraasyada qaranku waxay soo xuleen 7 geerash ama workshop oo ku kala yaala dhammaanba gobolada dalka kuwaasi oo qaban doona hawsha hubinta tayada gaadiidka dadweynaha waxaa kale oo la keenay qalab lagu ogaanayo xawaaraha gaadiidka dadweynaha ee rakaabka qaada qalabkaasi oo xadidaya xawaaraha gaadiidka kala duwan sida kuwa rakaabka qaada iyo xamuulka dhanka kale qalab casri ah oo lagu kantaroolayo dhaqdhaqaaqa gaadiidka dowladda ayaa tijaabo ku jira oo lagu rakibay 10kii gaadhi ee ugu horreeyey si loo ogaado awooddiisa xukuumaddu waxay soo iibsatay qalabyo lagaga shaqaynayo dhismaha iyo dayactirka waddooyinka xukuumaddu waxa ay si nidaamsan u dejisay qiimaha sarrifka isku-beddelka shilinka iyo doolarka waxaanu ku nagyahay oo lagu fadhiisiyey 8,400 oo shilin halkii doolar waxaa laga soo celiyey oo heerka sarrifka uu gaadhay 11,000 oo shilin halkii doolar sidaasi daraaddeed fadhiisinta iyo deganaanshaha qiimaha sarrifku waxa uu meesha ka saaray heehaabkii xasilooni darradii iyo kalsooni xumadii khalkhalka gelisay ganacsiga suuqyada sarrifka iyo guud ahaanba dhaqaalaha dalka waxaa dib soo noqotay haybaddii iyo kalsoonidii bulshadu ay ku qabtay shilinka Somaliland banka dhexe ee Somaliland waxa uu sameeyey xafiis diiwaan geliya dhammaan lacagaha caddaanka ah wixii ka badan $10,000 oo laga saaro ama la soo dhigo gegida diyaaradaha ee ciga ujeedooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahay diiwaangelinta lacagta dhooftana waxaa kow ka ogaanshaha xaddiga lacagta ee dalka dibadda uga baxaya waxaa la ikhtiraacay hannaan casri oo u oggolaanaya ganacsatada iyo macaamiisha kale ee baanka isticmaala inay lacagga ka wareejiyaan xisaabtooda una wareejiyaan xisaab kale nidaamkaasi oo la yidhaahdo e-banking waxaa kale oo la soo iibiyey qalab casriga oo kor u qaadaya ammaanka iyo awoodda adeegyada uu baanka dhexe bixiyo ummadda somaliland iyada oo ka duulaysa dhiirigelinta iyo kobcinta wax soo saarka beeraha waxay wasaaraddu sanadka soo iibsatay cagafta goynta qamadida taasi oo loogu talagalay in lagu gooyo dalagga qamadida ee sanadkan dhul badan lagu beeray sida mashruuca togwajaale si loo dardargeliyo mashruuca qaran ee wax soo saarka beeraha sidoo kale mashruucan togwajaale oo ah mashruuc qaran oo dhinaca wax soo saarka beeraha oo ay muhiim tahay dardargelintiisa iyo xoojintiisuba xukuumaddu waxay soo iibsatay qalabka qodaalka ee loogu beero si laynlayna kaasoo loogu talagalay in beerleyda lagu baro qaabka casriga ee beerashada waxaa la sameeyey kanaalo biyood oo laga hirgeliyey dhulbeereedka deegaanka beer ee degmada burco gobolka togdheer sidoo kale waxaa la qoday ceel gacmeed tijaabo ah oo dhammaantii xidhan kaasi oo lagu isticmaalayo farsamada loo yaqaano submersible pump dayactirka balliyadii hore iyo samaynta balliyo cusub waxay qayb ka yihiin dhaqaalaynta ciidda iyo biyaha mashruuca biyo joojinta dooxa biji waxaana u qorshaysan oo la bilaabay saamaynta 9 balli oo waaweyn waxaa dhoobaqaad lagu sameeyey 2 balli sidoo kalena waxaa loo qaybiyey beerleyda baco si ay ugu kaydsadaan biyaha waxaa sanadkan la tallaalay 3 milyan oo adhi ah kuwaasi oo laga tallaalay cudurka sanbabka kaas oo waxyeelaya wax soo saarka iyo ganacsiga xoolaha waxaana ka faa'iidaystay 50,000 oo qoys oo xoolo dhaqato ah oo gobolada dalka ka kala sugan hawshan waxaa ka qayb qaatay 38 kooxood oo ka kooban 200 oo qof oo shaqaalaha wasaaradda xanaanada xoolaha ka tirsan muddo 60 maalmood ah ayaanay socotay waxaa la daweeyey xoolo tiradoodu gaadhayso 1 milyan iyo 500 kun oo neef oo isugu jira adhi geel lo fardo iyo dameero waxaana laga daweeyey cudurrada hoos u dhiga wax soo saarka xoolaha sida shilinta caalka furuqa iyo dhukaanka geela xukuumadda Somaliland oo ka duulaysa ahmiyadda uu caafimaad qabka xooluhu u leeyahay dhaqaalaha dalkeena waxay hirgelisay dhismayaasha 3 shaybaar oo casri ah kuwaasi oo ku kala yaala magaalooyinka Berbera Laascaanood iyo Burco looguna talagalay in lagu hubiyo caafimaadka xoolaha dalka iyo xoolaha dibadda u dhoofaya mashruuca horumarinta xoolaha ee aroori waa mashruuc wax ka tari doona kobcinta wax soo saarka xoolaha ganacsiga xoolaha calafka xoolaha iyo tababarada xoolo dhaqatada dalka
wasaaraddu waxa ay qaybisay mashiinno nooca ridqa calafka xoolaha ah kuwaas oo tiradoodu tahay 25 mashiin waxaana loo qaybiyey dadka soo saara ama beera calafka xoolaha si ay ugu farsameeyaan hab casriya taasoo ay looga dan leeyahay dhiirigelinta habka casriga ah ee dhaqashada xoolaha wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysigu waxa ay miisaaniyaddeeda ku maalgelisay 4 doonyood oo loogu talagalay in lagu tababaro kalluumaysatada dalka isla markaana lagu ilaaliyo xeebaha si loola socdo dhaqdhaqaaqa kalluumaysiga ee dalka ka jira waxaa socota hawsha dib u ballaarinta dekada kalluunka ee magaalada Berbera iyadoo hawsha dib u dhisku ay si habboon u socoto waqtigan lagu jiro mashruucani waxa uu ka qayb qaadan doonaa kobaca kalluumaysiga Berbera iyo guud ahaan dalka xukuumaddu waxay markii u horeysay 2019 la soo wareegtay xogaha sahanka shidaalka ee shirkadaha shisheeye ay dalka ka sameeyeen taasoo isugu jirtay sahamadii baarista shidaalka ee ay sameeyeen shirkadihii dalka joogay ka hor 1991 iyo qaar ay sameeyeen shirkadihii Soomaaliland la gashay heshiisyada sanadihii la soo dhaafay waxaana shirkadahaas xogtooda ay xukuumaddu la soo wareegtay kamid ah Genal Energy, Ragas, DNO iyo Anzen si loo sameeyo xidhiidho dhanka macdanta ah oo cusub xukuumaddu waxay isafgarad iyo isfaham la gaadhay dalka Uganda xukuumaddu iyadoo eegaysa baahida loo qabo dooxidda dhulka si looga manaafacadsado wixii uurkiisa ku jira waxay sanadkan heshiisyo macdan qolis koobana la gashay shirkado dhowr ah oo dalka oo dhan ku filiqsan kuwaasi oo ay ka mid yihiin Africa Mineral Company, Al Khayraat Mineral Company iyo shirkadda Big Rock Mining saddexdaasi shirkadood waxay shaqada ka wadaan degmada Fiqi Ayuub ee gobolka Togdheer waxaana ku jiraan wajigii koowaad oo aan wax soo saar iyo dhoofin gaarin isla markaana waxa ka hawlgala 270 qof oo shaqaale ah wasaaraduna kormeer joogto ah ayay ku samaysaa hawlgudashadooda wasaaradda horumarinta tiknoolajiyaddu waxa ay meel dhigtay qorshaha horumarinta isgaarsiinta qaranka kaasi oo qeexaya tallaabooyinka muhiimka ah ee xukuumaddu qaadayso sidii horumarin buuxda looga gaari lahaa isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda casriga xukuumaddu waxay diyaarisay 6 xeer nidaamiye oo ku kala suntan la socodka dhaqdhaqaaqa isgaarsiinta maamulka xogta macaamiisha adeegyada isgaarsiinta isku xidhka shirkadaha isgaarsiinta hagaha goobaha isgaarsiinta liisanka iyo tacriifada isgaarsiinta iyo hirarka isgaarsiinta qaranka waxa kale xukuumaddu ay dejisay daraasad ballaaran kadib siyaasadda maamulka tiknoolajiyadda qaranka markii koowaad taariikhda Soomaaliland waxaa la qabtay shirka heer qaran ee ICT-ga kaasoo halkudhigiisu ahaa horumarka ku dhisan tiknoolajiyada waxaanu isu keenay in ka badan 300 oo qof oo kamid ah aqoon-yahanada dhinaca tiknoolajiga shirkadaha ka shaqeeya ama ku shaqeysta tiknoolajiga iyo jaamacadaha ku howlan horumarinta dhinaca tiknoolajiyada si looga wada arinsado heerka uu marayo tiknoolajiga qaranku wasaaradda horumarinta isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadu waxa ay diyaarisay siyaasadda horumarka boosaha qaranka diyaarinta istiraatiijiyadda ku shaqeynta elektarooniga ee dawladda horumarinta adeega boosaha Soomaaliland iyo qodobo kale Somaliland guulaysano gobonimada sharafteena gadi socodka nabadeena gaygeenu gaadhay kula mahadi weeyaano Somaliland waa guul Somaliland waa guul Somaliland waa guul Somaliland waa